waxaan jecelahay inaan weydiiyo doonaya in Cabdiraxmaan Ali Faarax wax jirta maxamed xaji baamiga oo naxariisto taariikh bad yani adigii waa joogtaa rag kale oo badan oo kumadiisa ka soo mid ah waa joogaan marxaladii dalka aad kala soo dabalateen marka laga yimaado waqtigii uu geeriyoon doona Allahu naxariisto maxamed xaji baamiga madaxweyne daahir yaala ahaa markaa ma wada xiriiri jirteen markii xaaladdiisa caafimaad wax dardaarno xagga dalka iyo gobolada maadaama soo wada shaqayseen arrimahaas ma jireen wallaahi muxuu ahaa kumaanaa jirin xukuumaddiisa laakiin dee wixii nooga baahdo qarannimada diyaar baanu ahayn laakiin maamulka dowladnimo dee dowladdiisii iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo wixiisii oo dhan buu lahaa annagu dee gacan kumaanaan lahayn runtii su-aasha ugu dambaysa jeclayna weydiiyo ee ku saabsan guud ahaanba dalkii xilligaa aad talada dalka haysteen dowlad daariyaala ka dambeysay tan maanta axmed siilaaye ka dambeysay maantana waxaa loo diyaargaroobaya doorashooyin 3 xisbi ku tartamaya waxaa tahay dadka lagama maarmaanka ah ee saadaalin kara ee talada muhiimka ah ku yeelan kara waxyaabihii qarankan lagaga badbaadin lahaa in doorashooyinkaasi ama ay halis keenaan ama ay marxalad ka duwan wixii loo soo dagaalamay loo soo dhisteen inay keento maxaa tala ahaan bal maxaa kaaga muuqda marinaysa doorashada maxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore waxay uga duwan tahay runtii waxa weeyaan xisbiyadan qaranka ee jira iminka mas-uuliyad weyn baa saaran iyagii nimanka hogaaminayaba mas-uuliyad baa dalka iyo dadkaba ka saaran waxa weeye nimankii berri ka maalin dalkan madaxda ka noqon lahaa waxaan aad u dhaliilayaa sida ay u tartamayaan waxaan uga jeedaa si ka hufan sidan oo ka qurux badan oo ka asturan runtii oo ka qabyaalad yar xisbiyada waxaynu u samaysannay in bal qabyaaladda lagaga maarmo dee haddayba xuubsiibatay haddaanu anigu ree hebel nahay haddaanu anigu jilib hebel nahay xisbigaasaanu ka soo baxnoo kanaanu gelaynaa haddaanu xisbiyadiina inayadii taa gogol ugu dhigayaan baad mooddaa qabaa'il waa leeyahay laakiin weli sidii quruxda badnayd ee milgaha lahayd ee xataa qabaa'ilku si hufan ugu tartami lahaayeen muxuu ahaa miidaankii doorashada iyo xisbiyada ma muuqato way qaawan tahay sanadkan waxaan leenahay xisbiyada waar maradii ku celiya bahasha ummadda reer soomaaliyana waxaan leenahay waar waa laydin daawanaya waa laydin fiirsanayaa oo adduuweynaha idin fiirsanaya oo waxaad mooddaa in dalka gudihiisa keliya laga daawanayo waxaad madaxdhaqaamiyadiinnii iyo salaadiintiinnii iyo boqorradiinnii isla soo taagaysaan muxuu ahaa telefishinka eed afka ku kala waaxaysaan ee aad ku dhaadanaysaan war qaran sidaa lagu noqon maayo waxaa loo baahan yahay xisbiyadu inay dadka ku hoggaamiyaan dariiqa fiican inay dadka ku hoggaamiyaan sida hufan ee loo tartami karo oo aanay dadku iyaga hoggaamin ee iyagu ay dadka hoggaamiyaan ayaan kula dardaarmi lahaa waxaana leeyahay haddii nabadgelyada la ilaalin waayo oo si fiican loo tartami waayo oo lagu talageli waayo in waxna la heli karo waxna la waayi karo oo muxuu ahaa sidaa lagu geli waayo tartanka war dalka madax laga noqonayaa alku imanayaa hadday colaada timaado yaa madax loo noqonayaa haddii dadku kala fogaado yaa madax loo noqonayaa haddii qaranku dumo yaa madax loo noqonayaa
waxaan leeyahay waan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay abaarahana inaga soo jebiyo xaaladda dalku way adag tahay abaar baan baa jirta in waxba doorashada ka sokowna warba dadkiina la jaleeco dadkii madaxda loo noqon lahaa wuu jilicsan yahay dushooda in lagu ciyaaro maahee in aad loo eego oo wax walba laga horraysiiyey in iyaga la badbaadiyo ayaan kula dardaarmi lahaa qolada xisbiyadaana aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan aw cali faarax oo barnaamijkeennii aynu ugu talagalnay in aynu waxyaabo fara badan cabdiraxmaan kaga waraysanay inoo suurtogeliyey barnaamijkanna intaynu isugu iman doonno waa filim qaadidii xasan haybe beegsi iyo anigoo cabdicasiis maxamed maydhaxa oo idinku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad iyo aad baad maasanta maasha allah